deega dada kan aynu godka ku jiraan aynu ka saarno inagu iskaashano walaalow gacaliyow aynu waxa weeye aynu ka baxno dulmiga kane wixii dhacay aynu ka heshiino labada qof dhinte laba kale hadaynu ku darno saddex kale ku darno inagu is ugaarsano maxaa bayna ka haray gabigeena 70 qof baynu ahayn wax badan baan xildhibaanka la hadlay wax badan baan la hadlay saaka almuhim walaalay hadalka idin soo koobay anigu hadda dil toogasho aan ku xukumanahay maxkamadda gobolka bari baana igu xukuntay waxaana la igu eedeeyay in wiil yar oo 5 nin oo xukuman oo 17 jir ah oo la qabtay oo 7 bilood ay haysteen oo xabsiga Boosaaso la geeyay oo waxa weeye markii hore la soo qabanayay ay ninka xildhibaanka ay walaalihiis isagoo meel wada amaraya inta xabad la dhiceenay soo qabteenay waxa weeye gurigooda ku haysteen muddo dhowr saacadood oo si xun loo jir dilay kadibna saldhiga Boosaaso la geeyay wiilkaas yarka ah oo 7 bilood ay haysteen oo maalin kasta waxa weeye xabsiga loo sii waday oo loo soo waday ayay waxa weeye waxay igu haystaan hadeer isaga wuxuu yiri muxuu ahay Shamsudiin baana soo diray oo isaga Shamsudiin u soo diray muxuu ahay Shamsudiin ayaa soo diray Sheekh Makaaw baa soo diray walaalkii wiilka yar baa yiri bay hadda aniga wax kale oo cadayna iyo wax kale oo hadeer magaranaysa la igu haysto ma jirto wiilkaas yiri baa leeyahay okay baan ku raadiyay wiilkaas sida yiri maxkamadda aanu ma joogin mana aan tagin wiilka ay haystaan ma ay 4 qof ee kalena maxkamadda anagu ma aanan joogin qareenna ma qabsan hawshadeedina tulbaa ku jira odayaal baa ku jira garaad Saleebaan oo aan hadda aanu magan u ahay oo garaadka ogaariyahan ahna garaadka waxa weeye isheeg Soomaaliyeed oo dhan la wada yaqaan oo aan gurigiisa aanu hadda joogo ayaa hawsha isna gacanta waxa weeye ku haya odayaal oo dhan baa og ismadii Puntland oo dhan baa jooga cuqaashi baa joogta mas'uuliyiin baa joogtay see maxkamaddu iyadu iskala rorto igu xukunta sootii micnaha wax markii la xukumayo ay maaragtay odayaashu markii ay ka noogaan dadku ka noogaan sootii maxkamad loo gudbin jiray see aanu xukunku igu dhacay dilka meesha lagu xukumay aanu ma joogin maxkamaddii ma joogin anigu ma joogin oo dil lagu xukumay yaasir oo walaalkaya oo dil lagu xukumay maxkamadda ma joogo Cabdullaahi adeerkay oo dil lagu xukumay maxkamadda ma joogo kii gacan ku dhiglee baxsaday isaguna maxkamadda ma joogin qareen ma aanan qabsan cid noodooda ma qabsan lawyer ma qabsan isma difaacin meeshii goobjoog kama nihin annagii baaba kuwa kan laftigooda dhibta loo geystay baanu aanadooda ka cararnay yaar meelaha idin ku dilaan oo guriyihiin idin ku soo dhacaan oo naftiina idin dilaan baanu ka cararnay ma dawlad iyo maxkamad iyo iyaduna idin raadsanaysa baan anagu aanu ku xisaabtamayn dawladdu soo noo dhexdhexaadka ahayd ma يعني واحد مسكحدي أنا جيلي لا إلى هدر واحد مسكحدي جيلي لا حكم كاس دلك أنا قال يقول حكمي أنا ولا يقان أو إنه جبدونا أو رير بوصة صودا أو أنا استفاعين أو محكمة تجن أو قرين قبسن أو وحبا أو دلت أو غشاء على يقول حكمي يعني دلك حكمكم واحد يقول لك دقة دتك مساكين تجبويها أيه يبرها أيه مدبانك أيه يحرر أيه دتك بونت فيفك مية حكمك اللي يقول لك دقة kuwii dadkooda leynaya shanshanta dhigay qabuuraha ku gurayay jamca ugu ridayay cid hadal haysi cid daba gashay toona ma jirto laakiin yibir aabihii dilay oo ma garanaysaa waxa weeye odayaal ku jiraan gartii oo muslim oo dhan ku jiro oo xeer u yaal maxaa keenay in 5 dil lagu xukumo dadka ma la isku leynaya maanta aniga hadii la dilo anu 4 wiil baan dhalay hooyaday waxay dhashay 7 wiil aabbahay 9 wiil buu dhalay haddii caawa la dilo oo xaqdarro la igu dilo iyagu wax ma deynayaan ilaahay baa ku dhaashay ma deynayaan dulmiga aniga la igu dilay ba iyaguna baritoona qof kale dulmi ku dilaya kii dulmiga lagu dilay isna mid kale sii dilaya allah waa 5 qof la toogtay oo 5tuba waxa weeye family carruur ka wada tagaya xaasina la ku dilaya حنا الكدلية ولا ليال محان جيسني سوينا لو ورثت معها سوى حود عنا لو ودية معها جوب شوك أنو كنا قلنا محكمة دي مركنا الحكومة يسوى معها سوينا قرين قبصنا معها سوينا استدفعنا معها بس إنك حل بانك أو فضل هالك أو شريت ولا مركب أباروه بنتلان كدعين فير بنتلان ودوجيهين أنت أنا جو بنتلان وقبتي هي أنت عن مجرد ساي شعب كرير بنتلان أو ضجع الله مي هي أنت مجرد ساي عن كقبتي بنتلان لو ودوجي ومرخات اللي جيهاي oo aan baadiyaha wareegay oo aan meel kasta wareegay oo aan meel kasta waxa weeye raashin iyo biyo aan qaybinay isaguna waa ogeedeen xamar buu joogay laaluush iyo ma garanaysaa doorashadii buu ku jiray oo lacag urursanay anigu ummadda Soomaaliyeed baan la ooynay marka walaalayaal gacali hawshaas hal la galo odayaasha reer Puntland waxaan ka codsanayaa
ummadda reer Puntland waxaan ka codsanayaa arrinkaas ha la galo walaalayaalow garta ha la galo hana la kala dhex galo arrintaana sida ugu dhaqsiyaha badan ummadda Soomaaliyeed hanoo soo kala gaaro hanoo soo kala gaaran hana la soo kala gaaro hana la soo kala gaaro haddii aanu dad muslimaan nahay oo walaalan nahay oo idinla degannahay dadka reer Puntlandow reer muxuu ahaayay qardhoodow aanu nin reer qardhoodaana qardhaan ku dhashay waa taqaanin idinka ay soo korsaday magaalada qardhaan waxa weeye inta ku soo leekaaday reer qardhoodow arrinteeda ka seexanina boqoraad leedihiin istimaad leedihiin idinka dawladoodan waxa weeye barobar muxuu ay sheeg xukuma idinka waxa weeye aniga waxaan yaqaan idinka maanta aan deegaan ahaan iyo tuulo ahaan iyo dhalasho ahaan aan gurigiinni iyo magaaladiinni aan ku noolaa reer qardhoodow fadhiga ka kaco hay hakranina haddii lay tooganayo oo dil laygu tooganayna hortiina ha laygu toogto walaalayaal hortiina ha laygu toogto ha lay dilo haddii xaq laygu leeyahay yaan la inixin haddii aan ka dambeeyey dilka wiilka yar maskiinka ah walaalkay dilay haddaan ka dambeeyey oo diinta islaamka igu caddayso ha lay toogto walaalayaal aakhiradayda ha loo danayo adduunya anugu waxaa laga yaabaa inaan shuwanbiyood isaga dhinto laakiin dulmi yaan laygu dilin oo lacag federaal yaan lii adeegsan oo wiilka yar xildhibaanka ahi oo kibray oo waxa weeye marna khayra dhigta wax ugu sheegaya oo dawladdii iiga dhow oo madaxweynihii iiga dhow oo xeeryaalihii iiga dhow oo cid kasta iiga dhow oo ma garanaysaa si allaale siduu rabo waxa weeye iiga aarsan karaa waxa weeye ha layga qabto insha allah biidni illaahi tacaalaana xukunkaas gobolka bari ka dhacay waxaan leeyahay ummadda reer Puntland reer Boosaasood reer Qardhood reer Garowe reer Dhaharood inta Puntland degan oo waxa weeye meesha joogtaay ilaahay baa idinku dhaarsay dulmiga baanta haddii laygu fuliyo ilaahay baan ku dhaartaa asbuuci ka dambayn maysaa musiibo qaran baa wallahi idinku dhacaysa shalay baa siyaad bar dad culimo ah ma la yacni kullay oo ilaa hadeer 30 sano aynu waxa weeye Soomaali oo dhan aynu rogman haddii xukunka la igu fuliyo aniga shanta walaalahaya nimankii aabahaya dilay shalay toolana cafinay oo ninkii annaga aabahaya dilay oo Nairobi ku raaxaysanayo aad ogtiin aan tolnimo ku cafinay maanta markii lix annagoo walaalaha naloo toogto cashaan wiil yar oo reerkoodii iyaga laga dilay waxa weeye Soomaaliyay dulmiga inta leeg idinkoo ma qaadateen oo qabaa'iladiinu ma qaateen oo dadkiinu ma qaateen oo Soomaali waxa isku laysaa waa ogtiin waa aano waxa qurbaha loo wada aaday waa aano waxa ummaddu u wada yaacday aad ogtiin waa wada aano waxa qurbaha dadku ugu wada yaacin aanay ka wada carreen anoo mag haddaan bixiyo xataa oo hadeer mag xataa haddaan bixiyaan ogaa inaan la idaynin haddana walaalayaal ima qabato in dulmi laygu dilo marka insha allah biidnillaahi tacaala waxaan u sheegayaa oo hadalkay ku soo gabagabaynayaa adeerkay boqor burhaan adeeroo boqorkii daarood baa tahay boqorkii Soomaaliyeed baa tahay magaalada aan deganahay ee deegaankaygaan ka soo jeeday Qardho oo aan anigu ku dhashay baad joogtaa ood ku sugan tahay waxaan hayna way taqaanaa hooyada Farciye Faarax Sunkar way taqaanaa aniga aabahay waa taqaanaa dadkayga waa taqaanaa adeeroo hana la soo kala dhex galo oo annagiyo ilma adeertayo dadka idinla deganoo qariibka oo idinla jooga baanuna na kala cisha qabaa'ilada kale waad kala dhex gashaan iyagoo 40 iska dilay baad waxa weeye gacmaha isu saartaan hadda iyaga reerka mid baa ka dhintay anagana mid baa naga dhintay hana la soo kala dhex galo oo boqor burhaan oo adaa boqorkii ummadda Soomaaliyeed deegaankaaga baan ka soo jeedaay haddaad boqor tahay caadila na soo kala dhex gal anagii walaalahayo oo islaamku hana soo dhex galo oo wax cid allaaliya cid damiir leh hana soo kala dhex gasho anagii walaalahayo dad wada dhashay baan nahay anagii baa dulman anagii baa waxa weeye aan wax xuquuqa iyo wax maanta aanu dal iyo dibad ku haysanay aysan jirin yaan anagu dulmi kala dhexdayna is dulmayno iyo wiil yar oo xildhibaan oo walaalkii la dilay yuusan aniga waxa weeye hortiina igu toogan hal iga soo gaaro oo walaalaha iyo dadkaas oo dhan waxa weeye meesha jooga muslimiinta ahi hana soo kala dhex galaa aad baan u salaamantiin daawadayaal salaada maqrib baa taagan weydin salaamaya insha Allah layfaf kala iyo maartay waraysiyo badanna insha Allah biidnillaahi tacaala wadin siin doona telefoonkaygana waa idin soo qoraya insha Allah aad baa u mahadsantiin hala sii sheer gareeyo hana nala soo kala dhex galo muslimtinimo iyo tolnimo hana lagu soo dhex galo dadka reer Puntland qariibka ku naan la deganahayna anagu tuulo malihin oo magaalo malihin oo wasiir malihin oo xildhibaan malihin oo wax allaali waxaan Puntland ku haysanaa iyo deegaanada Soomaali oo dhan ba ma jirto dadkayga yibraha ahayd magacooda habeen maan isku caydaan baana oo kii mid caaya midka kale yibriyo ilaa yiraahdo uusan nafisin annagiiba dulmig inta ay naloo geystay oo Soomaali oo dhan dulunta annagii oo marka is dulmayna maanta inay isku kaay fiirsataan oo annaga isku kaay fiirsataan Soomaaliyeed naga markin qabato أنا لسوق على بحجرو نك حلبان كان أنا كمان تواجه لعك بدني هاي واجه حقوقي هاي دولة جودن بوهايستا وما أودن مارتبي يجا أقدوي هاي مدحوني بيجا أقدوي هاي سودان يمشي مكرا
ninkaa walaalkayaana cabdirashiid maxamed xasanna waxaan leeyahay cabdirashiid oo ilaahay ka baq oo dulmiga aad igu wadid iyo quwadda aad sheeganaysa iyo xasaanadda aad haysatid anugu ma haysto laakiin anugu waxaan kuu sheegayaa ummadda soomaaliyeed ee facebook isticmaasho dhan baa aniga qabiilnaya garabnaya walaalnaya xasaanadna iyagaana iga kaa qabanaya dilka walaalkaa la dilay haddaad aniga iyo 5 walaalayaa noo tooganaysid oo aana aad noo dilaysid oo weliba aana sharciyeysan oo xukun iyo dawlad iyo aad ka soo dhammaysatay aad rabtiin inaad nagu dishid Soomaaliya dhan bay iga kaa qabanaysa insha Allah Soomaaliya oo dhan bay iga kaa qabanaysa ii xoog sheegan maysid aniga ina muxuu ahaayay baawarna ii sheegan maysid haddaad dawladda iyo madaxweynaha iyo farmaajo iga dhowdahayna damiir bay leeyihiin adeer gacaliya hooyooyin iyo faamilo iyo waxay ka dhasheen dad damiir oo muslim oo ilaahay yaqaan oo runta kuu sheegaya cabdirashiidow iga daa dulmiga igu wadid ani aabahayba waxa weey la dilay adna walaalkaaba la dilay walaalow gacaliyo aynu dadka masaakiinta yibraha ee dulman aynu gacanta isu saarno nabad ka dhex dhalino laakiin yaan dhiigayga iyo dhiigga muxuu ahaayay muslimiinta iyo walaalaha yuusan kuu muuqan kaa gacan ku dhiglaa maalintii la soo qabtay inaan kuu kuno tiirka haddaad dilaysa anaa markhaati adduunya aakhiraba kaa ballan qaaday walaal gacali haddaad meel ku ogtahayna sheeg anigu ma hayo waa ogtahay meel kasta ka baafiye wiilka cabdirashiidow ma hayo هذا حلبان هدا أوكتا إيشك ميلكو أوكتا هدا ديشان إيشك لكن ولا القعلي أنا ما هيو هاي الظلم مركع عبد الرشيدو وهذه الدعوة سألف كانت كجرتا ولا لو قعلي وهاي الظلم يجدا أنا أبهي بعد انتي أدنى ولا الكا بعد انتي لما وقف بقينا كتجي شلي واحد مجانا ما أيدن سين واحد بعد تأيدن مجيسن بوساسة أنت هتشوفتين معانا كمان أنت هدي ولا الكي واحد جيستي معانا يسوى بعض سنة ما حد دولة يقول عليك سنة ما حد قريها عيال كي هو الرئيسة بل قولوا هويدا فرحية فعل حسن قولي ما حد محكمة وقلت تكتير هويدا قلت على الله سوقف هويدا ما حد انت إنه أني أقول لما يجيب بين النهاية ما حد خبرت ديوان كان هويدا ما حد يد المحكمة قلت على الله سوقف عبد الرشيد إن هذا دول مجا يجدا الله يثبت كل شيء ده وكل شيء ده دول مجا يجدا ومدى الصومالية لأنه وحنا شيء وريا ونسوق على حجلا فيديو قالنا شيء شرقية أدبان إذن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.